ganacsatada kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa kulan ballaaran oo habeennimadii xalay ku qabteen hotelka Goleysa magaalada Burco waxay kaga hadleen isla markaasina ay si weyn uga soo horjeesteen cashuur ay ku tilmaameen inay tahay sharci darro taasoo lagaga qaado kantaroolada kala duwan ee degmada Sheekh gudidan ganacsatada gobolka Togdheer oo halkaas ka akhriyay qodobo kala duwan arintaas ka hadlayaan waxay fariin u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ugu baaqan in arintaas wax ka qabato wana kuwan qodobadii halkaas laga akhriyay sidoo kale mas'uuliyiinta gudida ganacsatada gobolka Togdheer oo ka hadlaysa arrimahaasi ganacsatada gobolka Togdheer shirka ballaaran ka isugu yimaadeen waxa ka soo baxay qodobadan ganacsatada gobolka Togdheer marnaba ma aqbali doonto inay bixiso cashuur kasta oo sharci darro meel kasta lagu weydiiyo waxaanu ka codsanaynaa hay'adaha dawladda arrintan ay khusayso in ay farageliyaan joojiyana si aan mar dambe dib ugu soo noqon sida wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda horumarinta maaliyadda wasaaradda ganacsiga iyo maamulka gobolka Saaxil qodobka saddexaad ciidanka booliska Soomaaliland waxaanu sheegaynaa in ay khalad tahay sharci darro in ay xanibaan hantida iyo gaadiidka shacabka reer Soomaaliland kuna xanibaan kantaroolka buurta ee degmada Sheekh kaasi oo ka dhalan karto ammaan darro aan waafaqsanayna xeerka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa soo noqotay caqabado ka imaneysay gobolka Saaxil oo haday tahay maartay degmada Sheekh oo ay kow ka tahay iyo degmada Berbera oo iyada laftigeedu ku soo dhiiratay xadgudubka iyo xeer jabinta ay degmada Sheekh ku talaabsanayso waxa dhacday in gaadiidkii gobolka Togdheer halka lagu istoobgareeyo lagu joojiyay oo aan kala xiriirnay cid ay khusayso oo telefoon lagu xalilay hawshii waa markii lixaad ama waa markii toddobaad ee arkaasi dhacday waxaanu ognahay in wadanku cashuurihiisa iyo mideyntiisu inay waqti dhacday oo meel lagu mideeyay ka bacdi waxa dhacday in marka degmada Sheekh ay go'aan ku qaadatay inay xoolihii iyo ganacsiga kale dekada ka soo baxayay ee iyada cashuurteeda loogu qaaday dekada Berbera in halka isbaarada ay u dhigato gaadiidkii ay ku celiso kuwii xoolaha ahaa iyo badeecadii kale ee dekada Berbera ka soo baxay laakiin waxaad moodaa inay dawladuna cadaalad ay ka gaabisay oo ay cadaalad marba markii ka sii dambeysay arrinkaasi ay waxba ka qaban weyday waxaasina xal maaha businesska iyo ganacsiga xal maaha dhibaato ay ku tahay waa ogtiin gobolkan dhibaato weyn baa cadaalad ku xeeran dhinac walba uu ka xiran yahay iyadoo taasi jirto ayaa caqabad waxay ka bilaabantay degmadii gobolkan ku xigtay badeecadii ka soo baxday Berbera iyo tii ku sii dhaadhacaysay in halka iyaguna isbaaro ay u dhigtaan arrinkaasi waa arrin aad u falxun waana arrin aan uga fadhino inay dawladdu xal degdeg ah ka gaadho anagoo ah gudoomiye ku-xigeenka gudiga ganacsatada gobolka Togdheer afka ganacsatada ku hadlaya gobolkan cuqdad weyn oo aan cadaalad aan yareyn buu ka qabaa mideynta cashuuraha waayo waxa weeyaan ganacsatada halkan fadhida ganacsatada kale ee la midka ah waxyaalaha ay dawladdu iibsato kuma macaashto qandaraasyada waxa qaata gobolada kale meel xafiis halkan ka furan yahay qandaraasyaayna ma jirto gobolkan oo caasimad ku xigeentii badeecada xoolaha halka maraya Berbera cashuurteedii mideynteedii lagu qabtaa arrintaas in badan bay soo noqotay Sheekhna in badan baa lagu xanibay gaadiidkayga anagoo ah muwaadiniin xuquuq ku leh aan dambi gelin hadii ay Sheekh ka waantoobi weydana maxkamadda sare aan isla gali doonaa waana dacweyn doonaa waxaanu qabnaa in ay xaq darro nagu tahay arrintaasi haddaan ganacsatada gobolka Togdheer in badan baa Sheekh lagu weydiiyay cashuur aan meel dastuurka Soomaaliland soo gelin waxaan leenahay dawladdu in badan baan la hadal in badan dacwadaha iyaga waan dhiib warkayna caawa waxa weeye waa arrinkii madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga madaxweynaha Musabbix Cabdi waxaan leenahay wadanka waa in il dheer loo eega oo meel walba loo warhaya oo cidii sharci darro wada madaxweyne aad indhaha ugu soo jeedaan waxaan codsanaynaa madaxweyne dadka dhib haysata dhibkuna waxa ka haysata oo in badan soo noqotay degmada Sheekh waxaan leenahay madaxweyne ka codsanaa sharcigu ha shaqeeyo wadanka runtii waxaan calaamad u jeedinaa kula shirkado badan oo aad moodana shirkadaha gobolka madax ka yihiin oo la shaqeeyo dadkii hogaamiyaya laakiin markay dhib ku timaado ganacsatada runtii aan u dadbanayn inay yimaadaan runtii arrintaasni waa arrin tafraaruq leh wasaaradda arrimaha gudaha amarka soo baxay bada saabka gobolka Saaxil amarka soo baxay intaas oo qoraal oo kale jirtay inta waxaad moodaa reer Sheekh way ka dhigaadeen waxaan noqotay arrintaas mid soo noqotay wali taagan sharci daraduna inuu sharcigu shaqeeyo waa muhiim waxaan halkan codsi uga jeedinaa wasiirka arrimaha gudaha
wasiirka ganacsiga iyo maaliyadda inay wax ka qabtaan cabashadaas oo wax laga bedelo nidaamkan dawliga uu shaqeeyo oo amarku shaqeeyo waa maalintii 8aad ama maalintii 10aad ku dhawaad oo baabuur tayada la xanibayo 30 ama 40 konton gaari markay gaaraan marka la haysto inta la doono baa maalinta dambe la sii daaya si waliba xeersasha baa lagu sii daaya annagu waxaan talahaan soo jeedinaynaa in sharcigu shaqeeyo sheekh iyo meelaha la mid ah ee cashuurta sharci darrada ah weydiinaya ganacsatada ee gobolka Togdheer aad uga cabanayaan waan xukuumadda ugu baaqaynaa arrinta in si dhaqso ah wax looga qabtaa marka anagu waxaan leenahay dawladda madaxweynaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha meelaha ay khusayso lacagtaas waa sharci darro madaxweynaha waxaan ku codsanaa madaxweynaha waxa isku oolan jirtay sharciga sareeyo lacag sharci darraan sheekhan lagu weydiinaya faladigu is waafaji labada wa Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV Burco.